السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال ميل walba aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalkeena Hikaadshe. maanta waxaan qaadanaa cashar English ah oo cusub. casharkani waa cashar iska bilow ah. waxaan baranaa maanta cashar aad u xiiso badan. casharkana wuxuu noqon doonaa kii koowaad isku soo noqodkeena dambe kadib. bal casharka aan guda galno. casharka maanta aan qaadanana waxaa loo yaqaanaa introducing yourself maxaa laga wadaa? waxa laga yaabaa inaad isweydiinayso waxa weeye macnaheedu introducing macnaheedu waxa weeye inaad isbartid yourself, naftaada inaad bartid, yani inaad naftaada yani dadka kala bartid oo waxaan ahay oo kale ama magacayga oo kale ama qofkan kula hadlayo oo kale waa cidaas inaad tiraahid. yani introducing yourself macnaheedu waxa weeye inaad dadka kala naftaada bartid oo cida aad tahay iyo waxa aad qabatid, yani nolosha meeqaamka aad joogtid iyo jogooyinka haysid iyo waxa doonaysid inaad dadka kala hadasho. marka ugu horeysa waxa ugu horeeya aad sameynayso waxa weeye inaad naftaada dadka bartid. marka maanta waxaan baranaa casharkii aad ku sahli lahaa ama ku fududayn lahaa inaad dadka kale u sheegi kartid cida aad tahay. waana qodobka ugu muhiimsan ee waxa weeye luqadda. yani introducing yourself marka casharka aad ku soo laaban waxa weeye inaad naftaada dadka bartid. casharkan wuxuu noqon doonaa cashar bilow ah. marka waxaan soo qaadanayaa common ways, yani ama hababka guud ee dadka aad u bari kartid cida aad tahay. okay, kow inaad tirahdid tusaale ahaan kale qofku waad salaamaysaa marka koowaad, kadibna waxaad u sheegaysaa magacaaga cid uu yahay. marka halkan waxaa kaaga muuqata hello, inaad qofkii salaantid. yani haddii aad qof muslima anagu nahay, marka haddaad rabtid inaad salaantan hellowda ah aad wax kale ku bedelatid oo aad tirahdo assalaamu calaykum ama waan ku salaamay, magacaygu waa tabtaas. marka hello waxay u taagan tahay salaantii bay u taagan tahay. marka inaad tirahdo hello my name is, magacaygu waxa weeye intaan bracketka ku jirta ee aan mataqaanaa yani bracketka ku jirta ee slash u dhaxaysa waa laba magac. marka haddii gabar aad tahay magacii gabar baa isticmaalaysaa, haddaa wiil tahay magacii wiil ayaa isticmaalaysaa. halkaas oo dhan waxaa ku bedelaysaa magacaaga, yani meeshaan oo dhan waxaa ku bedelaysaa magacaaga. marka tusaale ahaan kale aniga hadda kula hadlayo magacayga waxaa layihahdaa Muxiidiin. haddaan rabo naftayda inaan qof kale baro oo u sheego markii koowaad aan kulmana ay tahay, waxaan leeyahay hello my name is Muxiidiin. يعني hello يعني وان ku salaamay magacaygu waa Muxiidiin, waxaasan ka rabaa, waxaas mataqaanaa aan ka rabay iyo wixii aan doonay maanu gaarin. koo waxaan maranaa inaan qofka horta uu sheegi karayo cidda uu yahay. marka hello my name is Muxiidiin, my name is Cabdi, my name is Caasho. waxaad doontid magacaygu waa Caasho, magacaygu waa Cabdi, magacaygu waa Faarax. waxaad doontid ayaad ku bedelaysaa magaca, laakiinse waxa koowaad ee la rabo inaad fahanto waxa weeye hello my name is waxa weeye waa wax la wadaago oo kulligeen aan wada isticmaalano marka aan baraano. marka qaabkan waa qaabka koowaad, waana qaabyada ugu fudud ee loo dhihi karo. waxaa jira qaab kale oo ka sii fudud. qaabka ka sii fudud waxa weeye hi I am inaad tirahdid hi, yani waan ku salaamay bay hayda u taagantay. hellowdii baan hi ku bedela markaan. marka hi iyo hello waa isku mid oo macnaha waxba kuma kala duwana, salaan ayay ka turjumayaan. I am yani my name is meesha aad ka dhihi lahayd, magacaygu waxa weeye meesha aad ka dhihi lahayd ba waxaad leedahay waxaan ahay. shalay waxaan lahayn macnaha markii la safirayo waxa weeye waxay noqonaysaa hello my name is, yani waan ku salaamay magacaygu waxa weeye meesha aan ka dhihi lahaa waxaan leeyahay hi I am, يعني هاي أنا وحنا هاي هبل إيه هبل I'm Muxiidiin هاي I'm Muxiidiin يعني هاي وانكو سلامي أنا وحنا هاي Muxiidiin هاي I'm Cabdi I'm Caasho. واحد أنت تبقى ليك كذا. مركب حوي هاي وحي تاجنت سلامتي I amنا وحي كترجم ساعدي هاي مركب أتربت مجا إنا شكتد. مركب حدا هاي I am Cabdi I'm Caasho I am Muxiidiin whatever. يعني واحد أنت تبقى يعني هلك كوحجين كذا. مركب قيبت أنت بدن براكت كوتشرته واحد كوبدلنا سام مجا قفك يعني magacaaga ku bedelaysa arabtid inaad sheegtid. tusaale kale hadda gabar tahay magac gabdheed, hadda wiil tahay wiil magaciis ayaad ku bedelaysaa. qaybta saddexaad oo inta badan loo yiraahdo markii la rabo in qofku uu naftiisa dadka baro uu isticmaal karo waxa kamid ah inuu isticmaalo ereyga loo yaqaan this waxa loo isticmaalaa waa shay tilmaamay, waxba lagu tilmaamaa kan ama tan oo kale ayaa la yiraahdaa. marka kan ama tan oo kale ayaad maanta waxa u isticmaalaysaa inaad naftaada ku bartid dadka kale. inta badanna waxaa la isticmaalaa arrinkan ama
نوعان وكلا حل استعمالها مركي قفك أما تكست أو كلا أو درست أو سنكوتشيذن أما إيميل أو كلا أو درست مركو حل هذا this is هبل يهبل وحن كهربي وحن بنكهربي مركا ربتي إنا دهديد مركا مجا عاجا أنت هذا الشيء كهر وحدها سا this is يعني عدة كلها اللي سمعنا هذا وحوي عدة كلها اللي سوا هبل يهبل وقفك مجا عن له أيها كلها اللي مركو حل هذا this is محيدين وحن كعلص هالليا قريجة وحن هذا دوبيا 10 إنجليشة أو بلوة يعني ساس كلا وهالس إنجليش ساس وحبي على السفرية لكيس يعني حال ربع إنا فهمت وحوي معنى هذا إن ديسس أي تاجنت هاي مركز عاد استعمالك مركز عاد ربتد إن عاد نفط ضدك كلا برت أنت بدنا حال استعماله مركز تكست أو كلا أما فرين عاد قف ودرست عن كوتشي ذي نوكلا أما وحوي dad kale ayadoo la barayaa loo isticmaali karaa laakiin mar rabna in 10 kan waxaan ugu talagalay naftaada kaliya dadka barasid marka 10 kale ay soo socda waxaan u isticmaali doonaa siyaabo kale oo ka duwan okay marka inta badan dadka markii lala kulmo alla kulantid wala kala tagay Soomaha markii la kala tagay waxa la iswaadarsaa yani waa ku faraxsanahay inaan kula kulmay yani waa mahadsan tahay kulan dambe waxyaalo noocaas kale la yiraahdaa marka maanta 10 ka marabna in adkayna waxaan ka soo qaadanaa hal xabo oo inta badan caana runtiina yani nooc walba oo wada shaqeysa yani qof walba aad barataan oo isticmaali kartid marka waxa weeye nice to meet you macnaheedu waxa weeye kulan wanaagsan kulan wacan yani qofkii waxa tusaysaa inaad yani kuma yani aad ku faraxsan tahay kulankiina marka waxa leedahay nice to meet you inta badan nice to meet you hadii adeeg lagu yiraahdo ka waran ilaa sababta 10 introduction numberana marka waxa laga yaabaa in qofka uu kala hormaro oo ku yiraahdo oo meel uu degdegay oo ku yiraahdo nin kulan wanaagsan waa sii baxaya oo kale inuu ku yiraahdo marka seebaad ugu jawaabaysaa waa inaad taasan taqaana laakiin marka waad fahan nice to meet you macnaheedu inay tahay kulan wanaagsan يعني قفكي أدلا كلانتا يدحض شيء كذا كلن كينو إنه أها مد مرادله وناكسن إنه أها مركا nice to meet you كلن وناكسن قابك لو جواب لها واكن وحد لها nice to meet you too كذي واحد قدر صار تو أرجع تو معناه هذا حوي سيدا كلاوي سومالي مركا لك هذا سيدا كلا أيون نقنية مركا nice to meet you too هذا تريد واحد كوضع معناها أما واحد يعني لا هاي وسيدو كلا waxaan ku faraxsanahay ama sidoo kale kulan wanaagsan ama kulankeenu waa wanaagsan yani qofkii waxa uu sheegaysaa sidoo asagu kulankeenu u sheegay inuu mid wanaagsan yahay ina ba adiguna u sheegaysaa marka waxa leedahay nice to meet you too sidoo kale kulan wanaagsan عشان ما أنت سكسو جبجوين إن حركة كده ونسوي كاتشي هذا نقول عصب تاي فضلا يوتيوب كسبسكرايب صار سو تعشر بدن وخيس لا يعني صورنا إنتان 10 لما ذكوا كل مدن إنه حكاية تجي خير إيه برواقي إيه نبت كليو سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.